annagana waxaan ballan qaadaynaa inaanu nabadgelyada annagoo isku duuban aanu qaban qaadno malihi waxaanu ku ballan qaadaynaa wadadtiin gobolkan isaga warraba mayno waxaa loo yiqiin wadadtiin al-shabaab baa loo yiqiin Soomaaliland meelo badan joogta Soomaalidu waxay ku maamulaa faleexantii mooga gobolkeena waxaa loo yiqiin kulligii waa wadogtiin ilaahay ma hadii arkaa dadaal badan oo ay u galeen siyaasiyiinteena dadka reer Highland oo gobolkan u dhashay siiba degmada Dhahar oo ay ka yihiin dumarka hadda hortayda safan iyagana waa maxad celinayna waxaan markaan ogaa taakiidiyo maayarku cusub haday adan loo lahaa qof walbi wax qabadka uu soo leeyimaado baa lagu qiimeeyaa wax badan oo ballan qaadaa oo dawladdu inoo ballan qaaday baa jirta ka fadhiga koowaad oo golaha wasiiradu ay fariisan doonaan waxaa la ansixin doonaa 2 degmo gobolka ilaa wuxuu ka koobnaan doonaa 4 degmo oo imid caasimadda gobolka tahay markaan idin jilciyo hore waxaynu ku magacaabnaa degmada Xingalool iyo degmada Dhahar waxaa la magacaabi doonaa degmada Buraan iyo degmada Ceelaayo marka inta la magacaabo waxaan u maleynayaa waxaan noqon doonaa gobol dhammaystiran oo xuduudihiisa iyo degmooyinkiisa ay u dhammaystiran waxaa laynaga rabaa oo aan marlabaadii saddexaad ku celinaya sida uu maayarku sheegay aad baad u shaqayseen laakiin hawl kala badal wali waa ogadii waxa dhimanayna gudaha ka shaqeeyay dadka magaalada qashinkii baa yaala jidadkii baa xiran waxaa la soo dhacay dibadda inooga timaada ama roob lacag inoo iman maayo inaga la rabaa in lacag ka bixino inaga la rabaa in gacmaha is qabsano inaga la rabaa in u shaqeyno taana way ku baraarujinaya